kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay siyaasadda iyo xogaha qarsoon inta badan waxaan eegi doonaa rabshadaha ka socda magaalooyinka Somaliland dad rasaas oo looga qaaday banaanbax looga soo horjeeday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mucaaradka oo iyagana hub la soo baxay wararkii ugu dambeeyay xiisadda dhimashada iyo dhaawaca sababtay ee Hargeysa iyo meelo kamid ah Somaliland ka jirta ayaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay doorashada Kenya xagee la kala maraya Raila Ruto yaa loo saadaalinaya madaxtinimada wadanka Kenya wareysi ayaan idinka haynaa iyo waliba wararka ku saabsan gobolka Banaadir iyo cid qabanaysa oo buuqeeda uu cuslaaday waxaana beel kamida kuwa Soomaaliyeed ay sheegeen inaysan aqbali karin hadii aan la siinin gudoomiyaha gobolka Banaadir xilkeeda oo ay diyaar u yihiin inay dagaalamaan qodobadaas ayaan eegi doonaa u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan goordhow waa hagaag aan ku bilowno magaalada Hargeysa iyo waliba deegaanada Somaliland waxa ka bilowday maanta gelinkii hore oo qamiis ahayd banaanbaxyo looga soo horjeedo hab maamulka xisbiga kulmiye ee talada haya waxaana banaanbaxyada hor kacaya xisbiyada wadani iyo cid waxaana meelaha qaar la soo sheegaya in gacan ka hadal ciidamada ammaanka iyo dad mudaharaad dhigayay ay jireen wararka qaar waxay sheegayaan in la xiray Axmed Cabdullaahi Xamarji oo kamid ah gudoomiye ku-xigeenada xisbiga mucaaradka ah ee wadani internetkii ayaa hawada laga saaray deegaanada Somaliland inteeda badan maanta qamiisa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in rasaas ooda looga qaaday dad banaanbaxyo dhigayay kuwaas oo la tilmaamay in ay haweeney ku dhimatay dad kalena ay dhaawacmeen yaa xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro ayaa la arkay isagoo garbaha la hayo isla markaana ciidamo gaar ah ay isku geedaameen kaas oo banaanbaxayaasha kala qayb qaadanayay banaanbaxa looga soo horjeedo xukuumadda madaxweyne Biixi ciidamada ammaanka ee maamulka Somaliland ayaana kala ceerin ku sameeyay mararka qaarna rasaas nool adeegsanayay dadka iyaga oo diidanaa in banaanbaxa laga qayb qaato haddaba waan ogaan doonaa waxyaabaha soo kordha banaanbaxyada ka soconaya deegaanada Somaliland waxaanu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca doorashada Kenya isla markaana ay xaaladdu u muuqanayso weli mid la kala bixi laayahay sida ay xaaladdu tahay meelaha qaar ganacsiga inay furan yihiin William Ruto mise Raila Odinga yaa horeeya wararkaas ugu dambeeyay waxaa nala falanqeynaya wariye ku sugan magaalada Nairobi oo isha ku hayay sida ay wax u socdaan bal soo dhaw waxa nooga warantaa sidee ayaa maaragtay ay xaaladdu tahay doorashada xagee la kala maraya runtii doorashada Kenya si dardar leh ay ku socotaa ilaa iyo haatan waxa markaas isa soo taraya natiijooyinka la soo warinayo labada musharax ee ugu tunka weyn dhanka madaxtinimada xilka ku tartamaya waa Raila Amolo Odinga iyo William Samoei Ruto ilaa iyo haatan natiijooyinka waxa la kala sarmaraya boqolkii 1% oo markaas codadkii la dhibtay 39 ay inta badan natiijadu laba gibleynaysa waxa maanta isku furan isu socodka gaadiidka iyo dadka magaalada caasimadda ee Nairobi faras magaaleedu haatan aan markaas ku suganahay waxay ii muuqanayaan aad uga sheekeynayaan arrinta doorashada waa gartay marka laga soo tago in wali natiijada aan lagu dhawaaqin xaalka uu wali cakiran yahay oo dadku ay warbaahinta aad ula socdaan si ay natiijada u ogaadaan haddana mar walba waxa ay soo taraya warar kala duwan oo leh marna Ruto ayaa horeeyay marna Raila horeeyay marka kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa natiijada ka hor iyo wararkan isdhaxyaaca dadka isla dhaxmarayaan markaasi ay tahay mid aad looga sugayo kastoo dadka qaar marka la hadasha ay sheegayaan in haddii natiijadu aad isugu soo dhawaato isla markaana klabada uu noqdo hal dheeri oo markaasi wax ka yar 1% ama 2% boqolkiiba marka loo qaybiyo xisaabta guud ee doorashada waxay keeni kartaa baa leeyahay in markaasi tuhun imaado iyadoo wararka ilaa xalay soo baxayay ay sheegayeen in markaasi codadka la iska dhacay oo dadka qaar xitaa aan la hadalna saaka waalidiintooda qaar dadka aan la hadalno u tagnaa kala duwan ee markaasi golaha deegaanka Mombasa qaarkood ay sheegeen in codadkii ugu badnaa laga dhacay si gaar ah Kenya inta badan waxa aad loogu xasuustaa doorashooyinkii hore ee dhacay 2007 iyo waliba
2017 oo markaas inta badan ahaa kuwa markaas la soo khilaafay natiijada ka soo baxday laakiin midan inta badan guddiga doorashada gudoomiyihiisa ninka lagu magacaabo Wafula Chebukati waxa uu sheegay in markaas nabadda la ilaaliyo isla markaana loo baahan yahay in laga qayb qaato doorasho nabad iyo xasilooni ku dhacda laakiin waa mid markaas laga bursugayo in dadka ay ku qanci karaan natiijo waafi oo ka soo baxdo walow gudoomiyaha uu sheegay maalinkii shalay ahayd inay haystaan waqti aad u tiro badan isla markaana uusan ku jirin degdeg in lagu gaaro natiijada guud ee doorashada si loo shaaciyo laakiin uu sheegay ilaa 7 inay haystaan hadda maxaa ka soconaya xarunta Bombas ee guddiga doorashooyinka magaalada Nairobi meesha ugu dambeysa laga sugayo natiijada doorashada iyo waliba guddigana ay halkaas degan yihiin runtii xarunta Bomas of Kenya markaas meel ka yar baxsan ee magaalada Nairobi gaar ahaan deegaanka Langata marka loo socdaayay ku taala wana xarunta ugu weyn markaas tirinta codadka ay ka soconayso inta badanna waxa markaas guddigu ay helayaan natiijada oo markaas doorashada ku aadan waana mid markaas si gaar ah isha ay ugu hayaan dadweynaha reer Kenya ee arinta ku aadan doorashada ay ku soconayso la iyo haatan tiro sax ah ma aysan sheegin TV-yada qaar ee Kenya ayaa markaas natiijooyin kala duwan oo markaas si online ah ee mareegahooda ugu baahinayo laakiin mid dadka qaar waxay leeyihiin mid lagu kalsoonaan karo waana sababta markaas dadka ay uga dhugsanayaan IEBC oo marka xarunta Bomas ku shirsan oo arintan eegayay iyo waliba tirinta codadka yaa rajo fiican marka hadda marka celcelis ahaan ama odoras guud la sameeyo Raila Odinga mise William Ruto rajada dadka iyay isleeyihiin madaxweynaha cusub ee Kenya ee Kenyatta bedeli doona waa uu noqon karaa runtii labadooda kala ma dhacaan sida la wada ogsoon yahay Raila Odinga runtii waxa uu ahaa nin markaasi in muddo ah isku inuu mar uu ka noqdo madaxtinimada Kenya uu qabto laakiin ninkan markaasi isagana la tartamay haatana madaxweynaha xilka dhammaaya la shaqeeya waxa uu isagana sameeyay walaal cajiib oo ku aadan sida uu markaasi ku noqon lahaa madaxtinimo laakiin rajada markaasi Odinga waxay markaasi u muuqanaysaa in uu rajo wanaagsan ka leeyahay maadaama inta badan deegaanada Soomaalidu degteen oo district la isku yiraahdo inuu markaasi helay codad uu markaasi hogaaminayo Soomaalida marka yaa u fiican labada nin marka la eego tartanka ku jira Raila Odinga iyo waliba William Ruto Soomaalidase waxa nooga warantaa guulaha ay soo hooyeen Faarax Macalin waa la ogaa Dadaab waa ku soo baxay la yiri Aadan Ducaale waa soo baxay asagana la yiri bal Soomaalida guusha ay gaartay iyo cidda u fiican Raila ama Ruto yaa wiya ayaa leeyahay runtii Soomaalidu inta badan waa dad markaas iyagu ka fiiriya marka qofka ay dooranayaan xiriirka dadiyowga siyaasadda ku matalaya ee Soomaalida ah markaas in ay qofka uu la jiro iyaguna dhankaasi ku fiiran waxa soo sheegaya in dhankaasi ninka lagu magacaabo odayga Odinga inuu markaasi yahay midka ugu rajada wanaagsan Soomaaliduna ay aad u jeceshahay in markaasi doortaan Raila 77 sano jir waaya leeyahay halka 55 jir uu yahay William Ruto farqiga daada inkastoo ay dadka dhahaan waa iska tiro khibradda iyo siyaasadda iyo hab maamulka iyo xukunka guud lagu kala horeeyo hadda marka wararkii ugu dambeeyay maxaa hadda ka soconaya Nairobi maxaa noo sheegi kartaa runtii daada taasi mid markaasi dadku qaar ay sheegayaan laakiin waxa la leeyahay hadii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada ninkan Raila Odinga inuu markaasi sanadkan uu igu dhamaan karto maadaama daadiisu ay aad u hooseyso aad u sareyso markaana hadii uu qabto sano la dhigi karo inuu markaasi isu sababa caafimaad iyo waliba ahaan oo laakiin markan Nairobi waa ay fooranaysaa laakiin waxa markaasi laga dursugayaa waqtiyada soo aadan ilaa macaawa ilaa berrito oo markaasi natiijada rasmiga ay ka gaari karaan iyadoona arintan in dib u dhac ugu yimaado doorashada natiijada shaacinteeda ay markaa sabab ku tahay dadka oo markaa وهجاك فنقين كسب سن دورشة كينيا أيام ماركتي إيجني وركي وجود بيجي